waada barnaamijkeennii galabnimo jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay waa barnaamijkii labaad maanta jimcahan idiin soo gudbinayo taariikhduna waa 14 November sanadka 2025 qodobada barnaamijka aan idinku hayno waxaa kamid ah meydkii yahuudigii lafihiisa shalay loo dhiibay Israa'iil oo goordhow ay war ka soo saareen ma yahuudi ayuu noqday mise lafa kale ayay keeneen Hamas haddaba tafaasiil ku saabsan xaaladda guud iyo inta lafaha la raadinayo yahuudda hartay ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa macarako ama dagaal aad u qaraar oo dhinaca sharciga oo Israa'iil lagu furay talow yaa ku furay maxaase loo haystaa Netanyahu oo sumcad xumo markaasi kala kulmay gudaha shacabka Israa'iil talow maxaa la weydiiyay shacabka oo ay diideen inay ku taageeraan Netanyahu qaybta ugu dambeysana waxaan idiin hayaa taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka oo urur caalami ah u xil saaray inuu ka shaqeeyo Gaza dhexdeeda wadooyinka in la furo si gargaarka loo galiyo Hamas oo si weyn uga shakisan tallaabadaas una aragta mid markaasi lagu dhibaateynayo oo lagu ogaanayo siraha Hamas iyo godadka dhulka hoostiisa halka ay kaga jiraan haddaba ma ogolaan doonaan qorshahan Hamas mise tafaasiil culus oo sheekada ku saabsan waan idin hayaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad barnaamijkeena galabnimo maanta jimcaha aynu ku soo gudbinaynaa waa huba inaad si weyn uga hesheen macluumaadkii wararkii aynu ku soo gudbinay barnaamijkeennii subaxnimo ee saakay oo qodobo muhiim ay ku jireen waxaa sidoo kale inaga xusuus ah channelkeena kale ee qisooyinka nadaara laba waxaynu maanta oo jimcaha soo gelinay qiso kale oo aad u cajiib badan dadka jecel qisooyinka ama sheekooyinka xiisaha leh halkaas ayay qisada ka daawan doonaan haddaba inta aan ku jirno barnaamijkeena galabnimo wixii warar soo kordha kulanto wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan galab wanaagsan waa barnaamijkeennii galabnimo maantana waa jimce waxaynu ku bilaabaynaa shalay gelinkii dambe waxaynu isla ogeyn lafaha ay soo wada qaadeen Hamas iyo Jihaadul Islaami in loo dhiibay ICRC-na ay xalay u dhiibtay Israa'iil waxay noo joogtay in baaritaan lagu sameynayo lafahaasu inay yahuudi noqonayaan iyo in kale haddii yahuudi ay noqdaan saddex kaliya hari doonta lafihii ay raadinaysay Israa'iil 28 ahaa waxay haysatay 24 marka ka haddii lagu daro saddex kaliya hari leys marka waa la sugayay marka maanta maxay yiraahdeen lafii hore qaar bay ka shakiyeen qaar bay yiraahdeen yahuud ma aha kan hadda maxay soo yiraahdeen caawa ayay war soo saareen haddaba aanadii tusoo wararkii ugu dambeeyay Israa'iil waxay cadaysay lafihii loo geeyay inay ahaayeen maxbuus magaciisa ay ku sheegtay Godarad nin la yiraahdo haddaba Israa'iiliyiinta ayaa waxay xaqiijiyeen in lafaha loo geeyay oo ay gudoomeen waqti sii horeysay oo shalay ahayd inay markaa lafahaas oo ay keeneen xarakada Hamas iyo Islamic Jihad oo ICRC loo soo dhiibay in ay ahayd sida la leeyahay gabar yahuudiyada oo lagu magacaabo Mina Godarad taasoo la sheegay in lagu dilay 7 October 2023 weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'iil da'deeduna waxa lagu sheegay inay ahayd haweeney da' oo 73 sano jir ah haddaba xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa wuxuu sheegay in hawsha la xaqiijiyay oo eheladeedii loo yeeray laguna wareejinayo si ay u aastaan haweeneyda 73 sano jirka ahayd waxay dhaafeen malaal u leeyahay Hamas markay galeen wixii dhintay iyo wixii nool hal mar isku soo darsadeen way soo qaateen nimanku imtixaan ay duqdaas 73 iyo xogaaga jirta ayay soo wateen lagu leeyahay hadda marka waa garaneen Israa'iil marka meeqa ku hartay oo laga doonayaa 3 ku hartay saddexdaas marka hadii ay dhiibaan iyagu marka heshiiskii waa ka soo baxeen Israa'iil waxay hadda ku marmarsiyoonayso maalin walba wax u tuurayso wali waxba heshiiskii anaga qabyaa lama dhameystirin heshiisku wuxuu ahaa lafihii inay wada siiyaan marka hawshaas socota marka
waxaa ka caawinaya qoladan masaarida oo ka cagafyo iyo imaarati iyo waxaas wata ayaa meelaha soo saaray marka hadda waaba iska dhamaatay maanta 25 ayay haystaan qoladii imaarati lafii ay raadinayeen 28 ka ahaa saddex kaliya marka halka ku hartay qodobka halkaas ayaanu kaga gudbaynaa qodobka labaad ee barnaamijkeena aynu ku faahfaahinayno wuxuu yahay dagaal dhinaca sharciga ah ayaa lagu qaaday xukuumadda Israa'iil maxkamadihii dhanaa laga dacweeyay inkastoo maxkamadtii ugu weyneyd hala soo xiro ay tiri Netanyahu aan la xirin haddana macraka qaanuuniya wax la yiraahdo af carbeedka dagaal dhinaca sharciga ah oo meel walba ka soo galay Israa'iil waa karkartay way yaabtay dagaalkan marka xaguu uga yimid waa sheeko la yaab leh nimankan Israa'iiliinta konton doomood ay qabsadeen in ka badan oo nimankii xayiraadda Gaza jibinayna lahaa ee doomaha watay doomahoodii oo dhan soo Israa'iil ma qaadan soo ayagiina soo masaafurin dadkii wadamadooda soo uma kala dirin doomihii ay wateen oo dhan Israa'iil qaadan waa la wareegna dheh hadda marka maxkamaddu marka baxay maxkamadii maxay niman oo qareeno Turki ah oo balaaya ka dhacda lagu leeyahay oo halis badan ayaa meel walba dacwad ka dhigay Turkidu caadi ma halkan ka dacweyn halkan markaasa yahuudi isla qaylis dacwada la idin haystaa doomihii xaq darra ku haysataan dadka doomahooda la siiyo wax markabkii meesha socda oo Israa'iil leedahay su'aalaha la weydiinaya maxkamad hebel wadankeena waa dacwad ka taala waayaaba nimanka wixii xaqeela idin ka soo galay markaasa waxa la nimankii Ustuul Hurriya leeyahay ayaa idin soo galay haddaba marka aan idin tuso sheekada ugu xisaab badan telefishinka Al Jazeera ayaa caawa qoray wuxuu leeyahay Ustuushi as-Sumud iyo kuwii Al-Hurriya ayaa waxaa la sheegay inay bilaabeen qaanuunka inay ku dacweeyaan doomahooda maqan si markaa Israa'iil looga soo qaado haddaba isku dubaridayaal Turkiya ah hawshan wada ayaa waxaa la sheegay inay isku dubarideen inay markaasi ku qaadeen Israa'iil macrako qaanuuni ah ama dagaal dhinaca sharciga ah kaasoo Israa'iil ka mamnuucaya inay iska qaadato ay la wareegto doomaha ka qayb galay Ustuul Sumud iyo midda Al-Hurriya labadii qayboodba waxaana la sheegay Israa'iil inay hadda haysato 50 doomood oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn oo markaa iyagu laba mar oo kala duwan ay qabsatay marna 9 ayay qabsatay marna 41 ayay qabsatay la sheegaya 16 kalena mar kale ayay qabsatay marka sheekadaasu halkaas maray nimankii marka halkaas la isku hayaa waa la isfara saaray qodobka isaguna halkaas aan kaga gudbaynaa qodobka kale barnaamijka galabta oo jimcaha waxaanu idinku haynaa sheeko kale oo xiiso leh oo ku saabsan nimankii Xamaas ahaa layr asa u shidmay nal guduudan ayaa u daarmay nimankii Mareykanka ahaa ee Israa'iil xafiiska ka furtay waxay hoos tagaan taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka taliska dhexe hoggaanka ciidamada Mareykanka ayaa waxay siiyeen contract waxa ay ku tilmaameen munadama caalamiya urur caalami ah ururkaas muxuu sameyn kulaha Gaza tagaysaan wadooyinka Gaza dhan banaynaysan walxaha qarxa ka buuxa baabuurta gargaarka way ka baqayaan marka meel walba oo gargaarka laga doonayo inaad miinooyinkaas ka qaadaan reer Gaza adikuna waa ina ogolaataan ururkaas caalamiga inuu hawsha ka shaqeeyo nimankan maalagaada al-Qassam malagaadi karo niman ka horeeyo ay xadeen dhageysteen munadama caalamiya macna urur caalami ah ayaa Mareykanku contractsi ayagu waxay aaminsan Mareykan iyo Israa'iil inay hal xabba isku yihiin markaas marka way soo galayaan wadooyinka Gaza furayaan halkan god waaye halkan god ma aha halkan Xamaas gashay halkan ma la galo ayaa la gaaday waxaas waxaan hadda annaga akhrisanayno ma hadda hadda wali ogolaansho laga ma hayo Xamaas laakiin Xamaas way diidatay waxa leedahay munadama caalamiyadan la soo gelinaa meesh Turkidii maalin horena waxaan ka tarbiila iyo cagafa la galaynaa dadkaana caawinayna dhahay loo diidaa meesha waxba ku jiray
ولا إسقاط الربا مركا مريكان قعدوا حكور سويان nimanka Gaza jooga Xamaas waxay leeyihiin si gargaar badan uu soo galo Gaza waa in wadooyinka la furo marka qoladana imaanaysa qolada marka iyagoo gacmo laalaada ma imaanayaan xagee ka imaanayaan maxay noqonayaan yaa yaqaan lama yaqaan marka waa qalab ay la soo galayaan qalabkaas oo loo diiday qalab kuwaas la mid ah Turkida kuwan marka waa loo ogolaana halkaas marka waxa ku jira lagu leeyahay sheekaya abladikuna fakarkiina يا أركتدين واكديبان دونتا والله إسقاطها مشان هذا أريد تصو وركي وقد بيشي كذا لقى قري تاليس كان عيدا مدى بريكنك أيا وحي الشيغين إن بربركا إن لقاضو أي تايسلو سهلو قرقارك إنو قالو قزا هذا تاليس كان عيدا مدى بريكنك وركا صوبحي قارهان حفيزكو اسكو دوبريدك رايدك ميليتريكا مركا أي كفرتين إسرائيل waxay sheegeen hawsha inay ka shaqeynayaan munadama dawliya kuwa la yiraahdo ama urur caalami ah inay markaa hawsha u qaban doonaan ururkaas wuxuu ka shaqeyn doonaa dariiqyada in markaa la sifeeyo la furo sida wax laha qarxa looga qaado iyo si markaa gargaarka caalamiga uu u galo halkaas waliba meelaha ay doonayaan in aad looga shaqeeyo waa meesha la yiraahdo wadada la yiraahdo Salaaxudiin ee isku dhiririsa dhanka waqooyiga iyo koonfurta وماشي إسرائيل أي كلي ويس وماشي أي تي ويس صلاح الدين اللي را وضداس ووضصاس سجد برنقطة ورن كاس صومرت أو مال حليس بدن وماشي أقول بدن أي كبقيان إسرائيل جودتك أقول كلام نمو برنامج كي لبعض ما أنت رديس وقد بنا إنه حنا كل قادنا نتنياهو هو اللي جود جاي محكمة هي ويسوق كل العادين جوده وتي ترام ويرنكن هالسكعفيو مدحوينه أوديدي معارض كأيديدين marka warbaahinta Israa'iil waa kuwa imtixaana dadkii waxay yiraahdeen ma ogoshiin odaga in la cafiyo mise ma ogolideen aragtidii soo arooriyeen aragtidii marka la soo arooriyay ayaa madax xanuun ku dhacay lagu leeyahay ninka leeyahay Netanyahu shacabkii waxay yiraahdeen cafisa warnikan waa soo halgamayo rag waaweyn oo laayay intuu xukunka joogay wadaadkii Xasan Nasrullah iyo Xisbullah Ismaaciil Haniyi meequu ka dilay Xamaas Yahya Sinwar rag waaweyn oo dilay ninka miyuusan cafis naga mudnayn ee dhaayeen waxaan cafirayna male hantidii ummaddu dhacay isaga iyo familkiisa waa in xabsiga la geeyaa sheekadii ugu xumeeda ku dhacday lagu leeyahay ninkan waa ceebooba odagii hadaba aad tusoo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay aragtida dadka la oo la aruuriyay inta badan Israa'iiliyiinta waxay diideen in markaa cafis la siiyo Netanyahu way diideen ma la cafin kareen hadaba macadka la yiraahdo Lazar oo isagu hawsha qabtay oo macad aad ugu fiicana oo soo xiganayay jariirada la yiraahdo Macaarif ayaa sheegay 44% dadka Israa'iiliyiinta ah inay diideen in ninka la yiraahdo Netanyahu la cafiyo waliba cafiski Trump in la raaco oo cafis loo sameeyo way diideen musuq maasuqa waa haysanayeen dhanka kale 39 Israa'iiliyiin ayaa iyagu aaminsan in Trump la ixtiraamo maadaama Israa'iil wax badan uu kala qabtay oo markaa Netanyahu la cafiyo saasa la leeyahay marka sheeko waalana marka meesha ka socoto odagii marka waxa leeyahay dadka ma cafinayna dhahayaaba badan marka xaalku halkaas uu maraya barnaamijkana qodobkaas ayaa ugu dambeeyay asxaabay waxaan idin xusuusinayaa mar kale maanta waa jimce caadiyan ba jimcaha channelkeena kale ee qisooyinka nadaara laba la yiraahdo waxaynu soo gelinaa maalmaha jimcaha iyo talaadada qisooyin aad u xiiso badan ayaan halkaa ka soo daayaa haddaba dadka aadka u xiiseeya qisooyinkaas waxay geli karaan qisooyinka nadaara laba channelka la yiraahdo halkaa oo qiso cusub oo aad u xiiso badan maanta soo geliyay asxaabay barnaamijkii waa naga inta fakarka iyo aragtidana waa halkiina like gareeya oo share gareeya inta aan mar kale kulmayno jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo